qof waxa uu ka helaa fursad, qofna fursad ayuu ka lumiyaa, qof sharaftiisa ayuu dhulka la galaa. Waxaa lagu caayaa awoowayaashana oo boqolaal sano ka hor dhintay. Hooyooyinkeena ayaa looga ooyayaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaalada aan kala harka lahayn ayaa lagu baraa oo wadankeena 30 sano ka hor burburiyay. Gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda ayaa dhulka lagula galaa. Gabdhuhu dharka ayay ka soo tagteen, dhaqankiina waa ka tageen, balse lama oga halka ay u socdaan. Calaamadaha ay ku xardhan yihiin magacyada qabiilada oo calanka buluuga lagu hoos wado, balse aan la ogeyn halka ujeedkoodu yahay. Ragga Soomaaliyeed 2022 isku caynaya sidii dumarkii oo kale inta isku soo fadhiistaan. Kuwa la leeyahay waxa ay baneeyeen booskii raganimada, kuwa diinteena Islaamka u gafaya oo loo sacabatumayo. Intaa iyo kuwa kale waxaa kowsaday aalada TikTok oo isticmaalkeedu Soomaalidu sanadadii dambe aad ugu soo badanayeen, balse waxaa jira dad uga faa'iideystay waqtigooda. Dadkaasi waxaa ka mid ah qofka ay fursada u noqotay, waxa uu ku soo bandhigtay ganacsigiisa, waxa uu ku soo bandhigtay hal abuurnimadiisa, shaqo abuur ayuu ku sameeyay. Shacabka Soomaaliyeedna sumcad iyo magac ayuu ku leeyahay oo boos fiican ayuu ugu jiraa. Waad mahadsantihiin.